لاعب كره xulka qaranka dalka Jarmalka oo soo ciyaaray kooxda Arsenal Real Madrid Mesut Ozil ayaa sawir gacmeed ku soo bandhigay kooxii uu soo ciyaaray isagoo sheegay inuu ka shalaayay inuusan hal koox u ciyaarin horyaalka dalka Talyaaniga waliba kooxdaasi ahayd mid aad u jeclaa marun inuu xirto maaliyadeeda waatay kooxdaasi uu sheegay Ozil inuu ka shalaayay inuusan mar u ciyaarin sawir gacmeedkiisa muusan ku soo darin kooxda Arsenal kooxii uu soo ciyaaray dhammaan oo halkaas ku soo bandhigay muuqaalkan ku soo qaadan doona sheekooyin badan oo ka sheekeeyay Mesut Ozil laacibkii hore kooxda Arsenal Real Madrid iyo xulka qaranka dalka Jarmalka guuleystaha koobka adduunka ayaa soo bandhigay sawir gacmeed cusub oo ugu talagalay inuu ku muujiyo kooxii waaweynaa u soo ciyaaray qaaradda Yurub laakiin waxaan ka soo muuqan kooxda Arsenal laacibkan uu soo ciyaaray laacibkii hore ku guuleystay koobka adduunka ayaa dhawaantaha ka qaaday qaab dhismeed cusub ee jirkiisa wuxuuna dib u haween ku sameeyay inuu qaado ama uu bato dhanka jimka murqa badan oo soo saaro isagoo xiran maaliyada kooxda Juventus ayuu soo bandhigay sawir hortaagan sawir gacmeedyo badan oo darbiga ku sawirnaa Ozil ayaa bishii Maaj sanadkii hore ku dhawaaqay inuu isaga fariistay ciyaaraha kubadda cagta isagoo jiray da'da 34 sano waayisa ciyaarada cajiibkan guulo waaweyn la soo gaaray kooxaha qaaradda Yurub ciyaarankii hore Arsenal iyo xulka qaranka Jarmalka ayaa waqtigaas ugu ciyaarayay kooxaha ka dhisan dalka Turkiga Istanbul Başakşehir balse wuxuu ku dhawaaday ama uu sheegay in sawirada gacmeedku ku soo darin kooxaasi Ozil ayaa u soo ciyaaray kooxaha Jarmalka Schalke Werder Bremen koorinta uusan ku dhawaaqin ama uu aaday Real Madrid 2010 ka u saftay 159 kulan kooxda Isbaanishka Arsenal ayaa markii dambe jabsay rikoorka suuqa 2013 xidigan 42.5 milyan kaga soo iibsatay kooxdaasi Ozil ayaa u muuqday inuu iska indhajir waqtigiisa Arsenal markii uu naqshadeeyay kooxii u soo ciyaaray farshaxna oo ku sharfay waqtigiisii saddexda kooxood ee noloshiisa ugu jeclaa wuxuu ku dhawaaqay jacayl uu qabo Juventus isagoo ka shalaayay inuu jeclaan lahaa inuu u ciyaaro mar uun kooxda Juventus muuqaalka waxa ka soo muuqda Ozil Dyer oo saddex fanaanadood kala duwan haysta Schalke Real Madrid iyo Werder Bremen halka Arsenal ay ku biirtay Fenerbahce Istanbul oo sawirkaas aan lagu soo darin Ozil wuxuu yiri Juventus inaan mar uun u ciyaaro waan jeclaa waan kooxda aan ka taageero horyaalka dalka Talyaaniga barta rasmiga Instagram Juventus ayaa ka jawaab celisay cadaan iyo madow qoraal ah ama emoji ay soo saareen halka horyaalka Juventus Dusan Vlahovic usna ka hadlay hadalka Ozil 35 sano jirkan ayaa xirnaa dharka kooxda Juventus maaliyadeeda magaciisa ku qoran yahay dhabarka dambe wuxuu kaliya sheegay inuu aad u jeclaa kooxdan oo taageeri jiray Ozil ayaa labadii sano ugu horeysay Maras ku qaaday kooxda Arsenal tartanka FA Cup-ka laakiin wuxuu ku dhibaatooday inuu si joogto ah ugu shaqeeyo iyadoo tababari hore Arsenal 2018 u dhiibay heshiis cusub oo dhan 350 milyan oo toddobaadkii taa ka careysiisay qaar ka mid ah ciyaartooyda iyo jamaahirta kooxdaasi Ozil wuxuu sheegay in aad u jeclaa kooxda Juventus mar uun inuu u ciyaarana uu jeclaan lahaa laakiin aysan u suuragelin Talyaanigana kooxdaas aad u taageero maadaama maaliyadeedii Ozil ay ku xirnanta uu soo qaatay saddexda kooxood ee Jarmalka Real Madrid ama labada kooxood ee Jarmalka lagu daray Real Madridna oo farshaxan ku soo bandhigay inay ahayd kooxo qalbigiisa ku yaala laakiin meesha laga waayay kooxda Arsenal oo waqti yar soo joogay iyo kooxihii Turkiga ku soo qaatay wiilkan ku guuleystay koobka adduunka ayaa qaabkaas kaga hadlay maadaama uu ka fariistay ciyaaraha kubadda cagta inuu aad u jeclaa kooxahaas u soo ciyaaray qalbigiisana ay ku yaalaan sidee aragtaa farshaxameedka Ozil inuusan ku soo darin kooxda Arsenal